gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay wafdigii uu hogaaminayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar. wafdigaasi oo guul taariikhi ah u soo hooyay ummadda Soomaaliyeed iyo qaranka kadib kiiskii badda la xiriiray ee maxkamadda ICJ oo ay Soomaaliya kaga guuleystay dalka Kenya. boqolaal dadweynaha oo isugu jirtay madax, saraakiil iyo dad shacab ah ayaa isugu yimid garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho si ay uga qayb galaan soo dhaweynta balaaran ee loo sameeyay wafdigani qaran. soo dhaweyntaasi kadib ayaa ugu horreyn waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish. waxaan idinku soo dhaweynaynaa dalkiina hooyo magaalada caasimadda ah ee Soomaaliya Muqdisho airportkeeda Aadan Cadde International Airport. mudanayaal waxaan isugu hambalyaynaynaa guushii taariikhiga ahayd ee aad ka soo hoyseen dacwaddii badda ee u dhaxaysay dalka Kenya iyo Soomaaliya. mudanayaal waxaa jiri doona haddii Alle idmo hambalyo weyn iyo mahadnaq weyn oo bulshada Soomaaliyeed oo dhan ama in badan oo ka mid ah bulshada aan iraahdo ay meel fagaara isugu soo bixi doonaan la isugu hambalyo doono guushaas taariikhiga ah ee u soo hoyatay dalka Soomaaliya. mudanayaal marwooyin dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan waxay ka dhur sugayeen xukunka ICJ maxkamadda adduunka ee cadaaladda inay dhacdo tii ayaa dhacday una dhacday sidii aan u rabnay ilaahay idankiisa. ma rabo inaan war badan idhaahdo, waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo hadalkayga ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka si uu kelmaddiisa uga yidhaahdo biidnillah. soo dhawow ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo hogaaminayay wafdigani ayaa ka warbixiyay guulihii kala duwanaa oo ay wafdigani ka soo hoyay maxkamadda ICJ oo ay Soomaaliya kaga guuleystay kiiska badda. guddigii ama ergadii u qaabilsanayd maxkamadda cadaaladda adduunka dowladda Soomaaliya waan idinka mahad celinayaa soo dhaweynta ballaaran ee aad noo samayseen. mar labaadka guul baynu joognaa. maanta waxaynu joognaa goor Soomaaliya ay leedahay bad xadkeedu cad yahay, jeexan yahay, sharciga caalamiga ah lagu sugay, aynu guulaysanay, taariikhi ah ay tahay inaynu ku faraadayno. guushaasi waa guul dhammaan shacbiga Soomaaliyeed u soo hoyatay, dowladda Soomaaliya u soo hoyatay, xukuumad iyo shacabba u soo hoyatay. waxaan u mahad celinayaa dhammaan mas'uuliyiintii Soomaaliyeed iyo shacabweynihii Soomaaliyeed ee kaalinta firfircoon ka qaatay ee ka shaqeeyey ee habeen iyo dharaar u soo jeeday in kiiskaas badda ama dacwadda badda ee innaga iyo Kenya inaga dhaxaysa ay ku soo dhammaato xukun cadaalada oo cadaalad ku dhisan oo xaq ah. waa xaq aynu lahayn oo aynu soo dhacsannay oo inoo soo noqday. maanta uu cad yahay xuduudbiyeedka aynu Kenya la leenahay halka uu gaadhsiisan yahay. Soomaaliya way guulaysatay saddexda heer ee baddu tahaybana Soomaaliya ayaa ku guulaysatay doodihii iyo dacwadii maxkamadda caalamiga ah. haddaad u daba gasho tallaabo mar walba waxaa la qaatay doodii Soomaaliya waxaana la buriyey oo wax magami jiraan laga soo qaaday lagana dhigay doodii Kenya ay ku doodaysay. waxaan u mahad celinayaa laga bilaabo dowladda ku-meelgaarka ahayd Sheekh Shariif iyo ra'iisul wasaareyaashii la soo shaqeeyey ee wasiirka Saare Cumar Cabdirashiid ka mid ahaa, wasiirradii arrimaha dibadda ee xilligaa iyo doorkii ay ka qaateen dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare mar labaad Cumar Cabdirashiid iyo doorkuu ku lahaa ra'iisul wasaare Cabdiweli Saacid
wasiiradii arrimaha dibadda oo runtii kaalin firfircoon iyo door weyn ku lahaa oo wasiir Fawsiye ugu horreyso Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo hadda barbar taagani ku xigo Cabdisalaan hadda ku xigo Yuusuf Garaad ku xigo Axmed Ciise Cawad ku xigo maxamed cabdirasaaq ku xigo waayo wasiirada arrimaha dibadda had iyo jeer door weyn bay ku leeyihiin waxaan u mahad celinayaa baarlamaankeenii golihii shacabka ee aad uga dhiidhiyey oo mahad cawad haddana ay barbar taagay goobjoog ka ahaayeen oo ay qaraar ka soo saareen dowladda hantida iyo xaqa ay leenahay waxyaabihii ka hor imanayay shuruucdeenna iyo lahaanshaheena badeedna ay wax majiraan ka soo qaadeen qaraar baarlamaanna ay ka soo saareen waxaan u mahad celinayaa madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo oo 4 sano iyo barkii si dhow guddidayadii ama ergadii qaabilsanayd run ahaantii ula socday dacwadda badda oo xataa dokumentiyada la dirayo ama jawaabta la bixinayo nala review gareyn jiro nala akhriyi jiray nala sixi jiray aad ayaan uga mahad celinayaa doorkuu ku lahaa ra'iisul wasaaraheenii hore xasan cali khayre oo 3 sano iyo bar door weyn ku lahaa iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble waan uga mahad celinayaa dhammaantood iyo xukuumadihii kala duwanaa ee heerarkaas la soo jaan qaaday haddaydun geedi socodka dacwada u fiirsataan Soomaali mas'uul kasta doorkii kaga aadanaa ayuu ka qaatay shacwinaha Soomaaliyeedna waa u dhiidhiyeen waa u kaceen waa u sare istaageen bahda saxaafadda doorkay lahayd bay ka qaadatay maanta xaqaynu leenahay baa jira dhinaca wanaagsan ee wartibinta aynu ka shaqayno guul baynu joognaa Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha adkaato Soomaaliya ha midoodo